horta waa mahadsantahay guud ahaan su-aalihii haddaan isku soo koobnaanay oo taas kusoo khatimaya waxaa la yidhaahdaa adduunka waxaa ceeb ka ah maahan ceeb waa la isku maxkamadayaa waa khiyaano qaran waayo qof iska daa adugu madaxweyne iyo waxaa sheegaysaa iyo dad waaweyne qof agaasime la shaqaynaya dowlad ajnabiya waa la isku maxkamadayaa adduunyada waa khiyaano qaran haddiiba ay tagto arrintu in bannaanka intay ay timaado in madaxweyne la geysto meel kalena way ka sii daranta isbeddelkii la rajaynayay iyo ummadda soomaaliyeed waxay ku naaloonaysa iyo 25 sano dhibaatooyinkii dadkan soo hayay khasaaray noqonaysaa haddiiba taasi ay dhacdo oo madaxtooyada soomaaliya la geeyo cid ajnabi u ololeynaya ama ajnabi wato waayo caqliga uu meeshaas la fadhiisanayo waa caqligii lagu jeclaaday waana caqli la meerinayo oo kor laga soo meerinayo taasna inta badan uma dhowaa maslaxadda dadkaas ama dalkaas markaasi qofkaas xukumayo marnaba maaha marka xildhibaanada horaan u sheegnay waajib baa saaran waxayna dooran doonaan runtii sanadkan ayna tijaabo noqon doontaa waxay dooran doonaan qofka ugu wadanisan qof hebel dhihi mayno qofka ugu wadanisan oo dalkan la isleeyahay wuu ka saari karaa dhibaatooyinka ah in inta madaxdii gobollada loo yeero oo waddan kale inta looga yeero la yidhaahdo hebel maaragtay u ololeeya shariif xasan oo south west haysta haddaaman soo magacawnaba toos baa inta lagu tegey oo gabra ugu tegey ayuu ku yidhi xilkan kaa qaadaynaa 1 week toddobaad gudihiis haddii aadan taageerin musharaxaan wadanoo ah madaxweyne hadda xilku dhammaanayo oo madaxtooyada jooga yani halkaasay maraysaa arrintii soomaaliya marka runtii xildhibaanadu waajib baa u yaalla nimankaasi isku daygooda way samaynayaan waana la isku kaadeeyahay waxaa la yidhi haddii meeshii ili ka dhaco carabka u hawaystaa la yidhi soomaaliya dhulkay dhacday waana la hawaysanayaa wax kasta oo xun baana laku sameeya inaan noolaano oo la hadlo xitaa waa la gabayaa dad badan baan hadda xitaa intaas yar tahay oo la sheegayo aan sheegi karin ama meel la soo istaagi karin halkaasaa la maraya laakiin waa la dhiiraday anugu marka waxaan dhihi lahaa arrinta qabyada ugu weyn oo dowladaha dariska qabyada ka waxay tahay Soomaaliya inay qaataan sidii Zakariya ayaan xildhibaankan ku raacsanahay wax u dhiman oo hadda filla Soomaaliya u dhiman kaliya yani filla Soomaaliya arrintan way ku xayndaab bay ku jiraan iyo waxaas ay ku jiraan aniga waxaan isleenahay Soomaaliya waxay u baahan tahay gabigeedaaba dib u xoreen u baahan madaxweynaheena ka bilaabanaysa waxa weeye madaxweyne dalkan u shaqeynaya oo danihiisa ka shaqeynaya marka meeshaas la geeyo xayndaabka madaxtooyada isaga laga rabaa inuu nadiifiyo inuu siyaasadda Soomaaliya dhaqaalaheeda iyo ciidankii Soomaaliya oo shaqadan qaban lahaa 4000 oo ciidan ah 22,000 baa ku qoran warqadan oo amisoma ayaa waxay qaadataa kiiba $1,000 qaata ciidankii Soomaaliyana mushaar la'aan buu ayuu la circiirsan yahay inta badan al-shabaabka dadka difaaca waa ciidanka Soomaalida waa ciidamadani waxay ku jiraan ciid bay buurtaan meel kasta jannaal ha joogaan ama baydhabo ha joogaan ama beledweyne ha joogaan ciid gudaheed bay ku jiraan dal ma difaacaan al-shabaabna ma difaacaan al-shabaabku waa kuwa afgooya dadka ku dilay xalay maxaa loo difaaci waay al-shabaabku waa kuwa qaraxa halkan la jooga al-shabaabku waa kuwa laba magaalo oo la qabtay ay isku gudbila yihiin al-shabaabka la yiri way tabar daran yihiin marka waxaan leenahay biyo sacbadaada looga dhargaa hoggaanka loo baahan yahay waa hoggaanka la rabo ciidankii qalabka sida Soomaaliya inuu dhiso si Soomaaliya xuduudaheeda ay u xirato si Soomaaliya sovereignty iyo madax banaanideeda ay u keensato marka waxyaalahan yarka ah oo xayndaabka madaxtooyada lagu jiray waxaas oo dhan waxa ka weyn inaan helno madax dareensan dareenkaas shacabkiisu dareensan in la gaajoon yahay madaxan lacagtii laaluush miiska hoostiisa dhiganayn iyadoo dadkii biilaan ay u dhimanayaan madaxda aan rabno kuwaas maahan madaxda aan rabno waa kuwii 74 oo kale iyo abaarihii markay dhaceen 74 abaaruhu markay dhaceen in ciidankii oo dhan iyo dadkii oo dhan inta la soo qaaday la badbaadshay way oo dad badan oo hadda wasiirada iyo xildhibaanada ay maanta yihiin kuwii markaas la soo badbaadshay waxa laga yaabaa hoggaankii Soomaaliya inuu nooga jiro biilaan inuu hadda ay hayso mustaqbalka soo socda marka madaxda aan ka fikirayn inay laaluush iyo lacagihii qaranku lahaa laaluush lagu bixiye madaxda ka fikiraysa dadkaas inay biyo u dhaamiyaan inay ka soo wadaan meelaha fogfog ay joogaan in cunto la siiyo in doorashooyinka xitaa mararka qaarkood haddii dareen uu jiro doorashooyinka xitaa la yiraahdo war dhowr 2 bilood iyo 3 bilood iyo gurmad guud way waa musiibo weyn crisis baa Soomaaliya
haysta runtii meel xoolihii ay cunayaan xoolihii marka halkaasaan joognaa waxaan ka bilaabaynaa dib u xoreynta Soomaaliya in loo soo saaro madaxweyne waddankan kalsoonidiisa iyo dadkiisa yacni ka fikiro dareenka dadkiisa xambaarsan oo aan xambaarsanayn in loo warqado inta loo soo qoro la yiraahdo qabiilkaygana ku faani kuwa kalena hoos u dhig kaas maaha midka la rabo ama midka xildhibaanadu ay dooran doonaan waana maasantiin